waxaan maanta u qabtay shirkan oo aan rabaa inaan uga hadlo ummadda Soomaaliyeed inaan u caddeeyo markhaatina aan uga dhigta ayadaan rabaa waayo dalkan ummadda Soomaaliyeed qabiil kastoo Soomaaliya uu joogi jiray militarigu ka ahaa gudoomiyaal degmay ka ahaayeen barasaabiye ka ahaayeen hay'adaha dawladda oo dhan isku duwayaasho dhan waxay ahaayeen dad Soomaali ah waxa ay sheegay haddii qalad yihiin ayaga garan karo dhigi karo waa qalad wuxuu sheegay odaga nabadoonka bal waxa rabaa maanta saddex qodob inaan uga hadlo marka koobaad inaan ka hadlo maxaa si eeriyadeeda waxay ahayd iyo qaabka nimanka hadda sheeganayo ay ku yimaadeen tan labaad waxaan rabaa inaan caddeeyo nimanka dhahayo reer Hirshabeelle dhahay waa dal ka soo doortay baarlamaankoodii aan ku jirnaa see aanan maxaas wax ugu lahayn dhahayo kuwaasna waxaan rabaa inaan siiyo jawaab sax ah oo ku habboon waxaan kaloo rabaa jawaab sax ah inaan siiyo oo xaqiiqadu u sheego wiilasha yaryar oo reer maxaaseedka oo maxaas degan oo difaaca jidda hore ku jiro ayagana waxaan rabaa inaan la dardaarmo ummadda Soomaaliyeedna aan xaqiiqada jirto u sheego marka koobaad maxaas intaan u gari koor wax rabaa go'ldhac yar inaan idin sheego aniga maalmaha kamid ah anoo iskuul fasax ka soo qaataa geel ku ilaalinay aduunka geeli ayaa geeliga fakaday wiilaa watay waxaan ku yiri geeliyan doonayna keen nina naga hor yimid habeen iyo maalin markaa ku jiitaagnay raadki wuxuu yiri nimayow dhageysta aniga hadda ka hor geela iga galay meeshaan geeliina anoo arkay raadkiisa oo ii muuqdo oo saxaradiisii qoyan tahay aan ka soo noqday waxa kale faa'iidii sheegaya wuxuu yiri markii aan ka baxay dhulka xawaadlaha oo gudiga geed jicibna iyo wax lagu noolaan karo dhan ka baxay waxaan u tago yiri reer ka kooban 3 wiil 2 gabdhood iyo odagii habartii xoogaa yaroo ariyana ag daaqayaan reerkaasi dhammaantood qof walba u loo haystaa waxay garaacayaan yiri dhulkay garaacayaan waa la yaabanaa dhulka maxay ku sameynayaan Allah yiri nimir bale iigu jawaabaan yiri muddo ka bacdi ay ii warameen waxay ii sheegeen yiri dhulkay garaacayeen inay ka raadinayaan gocosho wax la yiraahdo gocoshaas markay soo baxdo in dab la saaro la yaro kululeeyo oo laga gubo maqaarka kadib la tumo inta loo qof caawa casho looga rabo dhulka la garaacay waxa ka soo baxay xawaadluhu marka dhulkiisa saay looma kala qaadan jirin nin walba markuu yimaado reerku ku soo aado habeenkaas wax la cuni jiray waxaan ogaadu yiri markaas inay iiga soo dhamaatay geel dambe inaan sii raadiyo sababtu waxay tuu yiri dadka ayagii nolosha ku nool cid ma marti gali karaan suurtagalna maaha inay marti galiyaan waayo waxa maanta dhulka laga garaacay hal qof oo kooda aan ku filnaan waxaan fiiriyo yiri marka ariga ag daaqayo waxara yaryar oo ahaa yiri misana geesuul ahaa buu yiri waa la yaabay waa fiiriyo yiri wuxuu ari waaweyn haddana geesuul ari waaweyn waaye haddana waxara iyo kale leeyahay geesada dheer dhawaaleey laba neef oo ag joogto geelana waxay leekaayeen irgahayn oo kale yiri korkooda dhan wada dabay ahayd yiri taa cid waliba waa ogtahay waa xaqiiqo dhaba Soomaaliya dhammaan intii ka shaqeysay gobolada galgaduud iyo Hiiraan way ogtahay nimankaas geeloodu geela anaga uma eko waa geel gaagaaban oo wada dab miiran oo lagu gubay labo arigoodu ariga anaga uma eko waa ari yar yar oo geesada dheer saddex dadkoodu dadkayna uma eko waa dad madmadow oo gaagaaban afar dhulka anaga uma eko dhulkoodu waa geed gaab gudubada dheerna waa leh cirka u fiiqan dhulkeenu ma laha waxaas gudubakeenu waa caadi waa gaaban yihiin dhulkeenu waa hawd wuxuu leeyahay cib dhul la isku qaldi karo maaha isku soo hino uma kaan karaan tan dhulka ah waa midaas taas ayaana koos garaysay in dhulka la soo tabadiyo oo la isku dayo xoog in lagu dago Soomaaliya kala xoog badna hadii dhul xoog lagu dagi karo dad baa dhulkooda la qaadan lahaa tan kale waxaan rabaa inaan sheego
nimankan xildhibaanada ee dhahayo annaga waxaa nala ka soo doortay Hirshabeelle xildhibaano baarlamaan Hirshabeelle aan nahay kuwa oo federaalka ee waa dooranay dhahayo taas waxa uga jawaabaya doorashada sheegaysi waa wada ognahay xaaraan ay hada walba beesha xawaadna ugaaskeedu ma tagin odayaasha dhaqanka dhammaantoodna ma tagin aniga kula hadlayo nabadoonnada beesha xawaadla ka mid ah waligayna ma tagin mana tagi doona xataa mustaqbalka soo socdo waayo xaaraan lagu abuuray markii hore beesha xaaraan ma hagaagayso waligeedna lama tagaayo mana aqoonsanayno wax kasta oo ka soo baxo waxaan idin sheegayaa kuwan qaylinaya habar gidir iska daaya dad xataa Soomaaliya ah oo qaarkood Itoobiya yahay qaarkoodna Kenyaati yahay ayaa ku jiro golahoodaas baarlamaanka oo kadib markii anagu aan diidnay fursadaha anaga iyo boosaska anaga ku galay taas midaas ay kala yahay ninka dhahayo xagga ka soo galay warooy reer Hiiraan mihid naga mid ma ahayd dulmiya ku timid wasiirka arrimaha gudaha bariga joogay iyo wasiir dawlihi oo labaduba habar gidir ahaa ayaa iska kiinaha xariiqay warqad sidaasaana meesha ku tagtay xildhibaanna kuma aqoonsani cid ku aqoonsan doontana ma jirto isgaabiya leekaas ummadda Soomaaliyeed waxa leeyahay waxa sheegaya haday beeyihiin beena sheegaysaa idhaha dhulkeen iyo dhulkooda inuu isku mid ahayn xoolahoodii iyo xoolaha dhow inuu isku mid ahayn dadkoodii iyo dadka dhow inuu isku mid ahayn haddaan inta been ku sheegayo waradaga nabadoonka beenu sheegaa dhahaya wax isku keenay jireen ma jiraan tan kale ay leeyihiin maxaa anaga degno iyo waa joognaa ay leeyihiin waxa rabaa wariyaal caalami ah yimaadaan waa kaxeynaya maxaa saageynaya eeriyadeedu dhan ku wareejinaya haddii xataa gabartooda hodhida xawaadla qabo maxaa si eeriyadeeda laga soo helo dhulka shirka ay ugu leeyihiin waxa la wixii ka yimaadeen oo ay la qaybsanayaan nimankan Soomaali way ogtahay ummadoo dhan ay gubeen marbixiday ku duulaan magaalada Beledweyne waa weedantay ku soo duuleen qabsadeen marixaa way ku duuleen biimaal waa ku duuleen dhooboyna waa ku duuleen kismaayo waa ku duuleen jilib waa ku duuleen meel walba waa ku duulaan waa fidnada kaliya ee Soomaaliya oo dhan ay ka degilaanay waxaan leeyahay Soomaaliya iska arka dadkaas iska arka waxay la dhaqaaqi laadahay dawladda taagta daran ee maanta Soomaaliya ka jirto waa fidnada nimankaasi wadaan waa fidnada nimankaasi wadaan waa hal la arko waa niman diidan in lagu noolaado xaqiiqadaba waa niman diidan in lagu raaxaysto nabadgelyo waa niman diidan haba yaraatee Soomaalinimo waa niman la dagaalansan calanka Soomaalida waa niman la dagaalansan jiristaanka ummadda Soomaaliyeed ee qarannimadeeda waxaan rabaa marka si cad inaan ugu sheego ummadda Soomaaliyeed maxaa sarta dad iska leh wiilal yar yar oo diyaar u ah inay difaacdaan dhulkooda joogo xawaad loo dhan xataa wada laha sabatal soo dhan xataa wada laha cali madaxweyne oo dhan xataa wada laha maxamed cali nima yiraahdaa iska leh wiilash yar yar maxaas joogo hadday cayr ka cisho waayaan ayaga u taala cid u kaalmeynaysa xataa ma jirto ayaga ku filan waa ku kalsoonahay inay difaacan doonaan ay cishan doonaan dhammaan saxaafadda caalamkana waxaan u sheegaynaa yaan been leedii sheegin igu imaada Beledweyne baawraa idinku qaadaya anaa idin geynayo guryaha qof u soo warsada baadiyaha ku soo wareega xoolaha dadka la jira soo wareesta ilaa 40 kilomitir ay wareejinaya haddii qof ayaga laga soo helo ama ay degeen xataa waa sax waxay sheegayaan waxa yar ay sheeganayaan waxay tahay abaartii dhacday maalintii dhaweed oo la isku guuray ayaa soo dhaweeyeen booyada biyo u rareen raashin ay u rareen nolol ay u rareen xoolihii ka dhamaanay ayaa dhulkii la daaqay markay arkeen xoolihii daaqay daadoo dhalay sidoo noqotay waabay ku dhageen dhulkii waa laga fujin laayay marka walaalayaal waxa idin leeyahay dadka hal wada arko haddaan khaldanahay waa khaldantaa la yiraahdo idinkaan idin marqaati gashanaya dhulku isku ma eka dadku isku ma eka xooluhu isku ma eka deegaan kale cid kasta oo Soomaaliya saraakiisha hore joogto ka soo shaqeeyay wadanka wasaaradaha dhan oo dawladda ka soo shaqeeyay maxaas degma laga soo shaqeey jiray dawladda hay'adaha dhan oo dawladda ka shaqeynay isku duwaha wasaaradda caafimaadka ka shaqeynay waxa jooga isku duwaha wasaaradii waxa jooga mataqaana dhirta iyo daaqa waxa jooga isku duwayaasha dhan oo gobolada dhan jooga wax kasta oo degma jooga joogay waa la ogyahay waa la yaqaan maanta wax laga been abuuri kara ma jiraan waxay maagan yihiin colaad
colaad hadday maagan yihiinna de maxaase waa taasa wiil yar inaa iska leh wayna taagan yihiin ayagaana iska dhicinayo